waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مر صدحات يا حسابتيني فصل كتضباط شابتركا أما عتبك إنه كوجد كنا وحا جيومتري وحينو سوق قاضني حقلا وحين سوق قاضني parallelogram ama barbarolaha waxa loo yaqaano waxaynu isku daynay balinayno xisaabada yar kooban ka sameeyno waxaynu soo qaadanay xaglaha gudboon ama xaglaha barbaraha ah laymanka barbaraha ah ee uu gudbanuhu dhex marayo marka maanta hadii ilaahay yiraahdo waxaynu eegaynaa laymanka barbaraha ah ee uu gudbanuhu ama gudbanuhu uu dhex marayo xaglaha ka sameysmaya ee kala nooc ah ayaynu qaadanaa hadii ilaahay qadaro imisa nooc xaglaha ka sameysma calculation kooda ama xisaabtooda ayaynu hadii la yiraahdo aynu qaadanaynaa daawasho waan xaglaha ka sameysma gudbanayaasha xariiqaha barbaraha ah dhexdooda xagali waxa ay ku sameysantaa laba xariiqood dhexdooda hadii lagu siiyo midna laba xariiqood dhexdooda waxa ku sameysma waa xagal weey xagal marka cabirkeeda halbeega xagashu waa degree-na ever kayar korka sare hadii jeer laga saarayo ayaa loo qaataa hadii lagu siiyo laba line oo barbara ah labada line oo barbara oo soo dhex maro line ma gudbana waa line-ka labadooda jaraya waxa inooga sameysmi kara xagla fara badan xaglaha midna xagga sare ama line-ka sare iyo gudbanaha waxa ka sameysmaya afar xaglood line-ka hoose iyo gudbanaha saad arkaysaan isagana waxa ka sameysmaya afar xaglood ayay nooga sameysmaya marka halka waxa kaaga soo baxaya xaglaha waxa loo yaqaano laymanka barbaraha iyo gudbanaha xagla gudboon qaybta koobaad magacyada xagluhu ay leeyihiin way farabadan yihiin magacyo kala duwan way leeyihiin marka qaybta koobaad hadaynu soo qaadano waxaanu ku bilaabaynaa xaglo gudboon baynu ku bilaabanaa okay xaglaha gudboon way isleeyihiin horta marka ugu horeysa intaynaan tilmaamin halka ay ku yaalaan way isleeyihiin xaglaha hal dhinac wada furan sida xagasha ay ku qoran tahay hal iyo taay ku qoran tahay 5 nambaradan mid waliba xagal bay ku qoran tahay marka xagasha numberkeedu yahay hal iyo xagasha numberkeedu yahay 5 midna dhinac bay labadaasi wada fureen xagasha number 1ka iyo xagasha number 5ka u fiirso khadka casaanka ayaa ku marsan labadaasba dhinac bay wada furayeen waxa kamid ah marka labada xaglood way isleeyihiin waxana la yiraahdaa waa xaglo gudboon ba la oranayaa waxa kamid ah 2 iyo 6 ba kamida yani xagasha number 2 iyo xagasha number 6 oo iyaguna dhinac wada furan sida aad ku arkayso qalinka buluuga xagasha number 2 oo iyaduna dhinaca u furan iyo xagasha number 6 oo iyadna dhinaca u furan sida aan arkayno hal dhinac bay labadooduba wada furan yihiin labada xagloodna waxaan oranaa waa xagla gudboon waana isleeyihiin waxa kamida 4 iyo 8 4 iyagana dad fiirsato 4 waka 8 waka labada xagloodna waa xagla gudboon waana isleeyihiin xagashay kale ku hadhay waxa kamida 3 iyo 7 u fiirso xagasha 3 iyo xagasha 7 iyaguna waa xagla gudboon waana xaglahaasi way isleeyihiin okay xagla foodsaar waxay sameysmaan marka ay laba xariiqood iska dhex talaabaan tusaale ahaan labadii line ee barbaraha ahaa marka uu line gudbaniyihi ka dhex talaabo labadoodiiba uu ka dhex talaabaya
waxaa halkaa ka samaysmaya xagle foodsaar. xagle foodsaar iyakuna way isleegyihiin sidii ay ahaayeen xagle gudboon ama qaabka sida isku leekaayeen xaglaha gudboon ayay xaglaha foodsaar iyakuna isku leegyihiin. waa xaglo wadaaga hal gees oo sii kala jeeda. tusaale xagasha hal iyo saddex, xagasha hal iyo saddex. u fiirso, xagashaa hal ay ku qoran tahay iyo xagashaa ay ku qoran tahay saddex waa laba xaglood oo sii kala jeeda. labadaa xaglood waxaa la odhanayaa waa xaglo foodsaar baa la odhanayaa. xagle foodsaar markaa way isleegyihiin iyaguna. waxaa ka mid ah laba iyo afar, iyaguna saasoo kale xagasha laba iyo xagasha afar waa xagle foodsaar waana isleegyihiin. waa laba xaglood oo sii kala jeeda haddaad u fiirsato. xagasha matalan 5 iyo 7 iyaguna waa xagle foodsaar waana isleegyihiin. number 5 iyo number 7 ka eeg labada xaglood ay ku kala yaalaan labada number iyaguna waa laba xaglood oo isleeg. waxaana la odhanayaa waa xagle foodsaar ba xaglaha soo kale loo yaqaana. maxaa ku hadhay? waxaa ka mid ah xaglaha foodsaar xaglaha ay ku qoran yihiin 6 iyo 8 waa labada xaglood ee number 6 iyo number 8 iyaguna soo kale waa xagle foodsaar waana xagla isleeg. labada xaglood saasoo kale iyaguna way isleegyihiin. midun iska ilaali xagle foodsaar inaad ku qalado waxaa dhici karta mararka qaarkood haddii lagu yidhaahdo matalan sidaa balka war ma xagle foodsaar ba maya ma aha xagle foodsaar kuwa noocaas oo kale ah. laakiin labada leen hadday saa isaga dhex tallaabaan waxaa la odhanayaa waa xagle foodsaar. marka xagasha iyo xagashaasi way islaagaanayaan, taa iyo taasina way islaagaanayaan. marka kuwaasi waa xagle foodsaar bay noqonayaan. marka xaglaha foodsaarku maaha laba xagloodoo kale kaanoo isku yimidee waa laba leynoo iska tallaabay xaglaha ka samaysma ee sii kala jeeda ayaynu odhanna waa xagle foodsaar. hal gees baanay wadaagaano dee geeska dhexda bartaa dhexda xudunta ayaa geeskoogu ku wada yaala dhammaantood. marka kuwaasaa la odhanaya xagle foodsaar waana isleegyihiin xaglaha foodsaar. tusaale ayaynu ku bilaabi. raadi baaxadda xaglaha l y iyo r ee shaxankan ku yaal. shaxankan sida aad ku arkayso xarfaha wad aragtaa xarafka l iyo y iyo r xarfahaasi dhammaantood waxay ku yaalaan xaglo. marka xagal kasta waxaa lagaa doonayaa qiimaheeda adigoo isticmaalaya nidaamkii xaglo foodsaar ama xaglo gudboon. labada nidaam aynu soo dhiganay ilaa hadda waa xaglo gudboon iyo xaglo foodsaar. waaye u fiirso, xagasha l waa 120 oo maxay l 120 u noqotay? l waxay 120 u tahay waa xagle foodsaar ah. sababta ayaad sheegaysaa waxay foodsaar la tahay 120ka 120ka ay sii kala jeedaan. u fiirso marka sababta marka lagu weydiiyo numberka marka aad sheegto qiyaasta marka aad sheegto waxa laga doonayaa inaad raaciso sababta aad ku garatay. l waxay leegtahay y, l waxay leegtahay y waa mar labaad l iyo y way isleegyihiin oo sababta waxa weeyaan waa xaglo gudboon. l iyo y sida aynu arkayno waa laba xaglood oo gudboon. marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay y-duna waa 120 degree, y-da laftarkeeduna 120 degree bay saa kuugu noqonaysaa. okay, r waxay leegtahay 120 degree, xagasha r 120 degree. sababta sheeg ardayo, sababta waa maxay? y iyo r waa xaglo foodsaar. sidaa daraaddeed waxaan odhanaynaa waa xagal foodsaar ayay la tahay r xagal foodsaar bay la tahay y. ma jirtaa xagal kale oo ay r leeg tahay oo sabab kale ay ku leegaan karto? haa weeye jawaabtu. sababta waxa weeyaan r 120 way leeg tahay isla xagasha ay ku qoran tahay 120 ayay yihiin xaglo gudboon. xaglo gudboon marka labada xaglood iyagu waa xaglo foodsaar ama waxay gudboon tahay la gudboon tahay 120ka. u fiirso 120ka iyo r waa laba xaglood oo gudboon. sheeg oo magacow xaglaha. halkan waxaa ku yaala dhowr xaglood. marka waxaan kaa doonayaa qaar kamid ah aadan kuu deynayaa qaarna waxaan rabaa inaan ka wada shaqayno. marka waxaan kaa rabaa inaad sheegto oo aad magacowdo xaglaha kuwa gudboon gaar ahaan. imika matalan j xagasha ay gudboon yihiin halkaa magacii gudboon baan ayaan kaa iloobay laakiin waa xagasha waxaad sheegaysaa xaglaha gudboon baad sheegaysaa. j xagasha ay gudboon yihiin waa t. okay, j waxay gudboon yihiin xagasha h bay gudboon yihiin. okay, k xagasha ay gudboon yihiin waa t. k waxay gudboon yihiin xagasha f ay gudboon yihiin. okay, l
xagasha ay gudboon yihiin waa tee l waxa ay gudboon yihiin xagasha e ayay gudboon yihiin okay I xagasha ay gudboon yihiin waa tee I xagasha ay gudboon yihiin sida halkaa kaaga muuqata waa xagasha G marka xaglahaasi dhammaantood waa xaglo gudboon waxa la doonayaa inaad garato xaglaha gudboon iyo halka ay ku kala yaalaan inaad garato ayaa laga rabaa qor qiimaha xaglaha lagu calaamadeeyay xarfaha sababtana sheeg xarfaha lagu calaamadeeyay xaglaha qaarkood sida matalan D iyo C marka waxa laga doonayaa inaad qiimahooda qorto sababtana aad sheegto way aynu ku horeyno xagasha C xagasha C qiimaheedu waa imisa sababta ay qiimaha ku yeelatayna waa maxay kow qiimaheedu waa 120 qiimaheedu waa 120 sababtuna waa maxay waa xaglo gudboon C waxay la gudboon tahay isla 120ka D saasoo kale qiimaheedu waa 120 waana xaglo gudboon marka aad sheegto qiimaha xagasha waxa laga doonayaa isla markaa haddana inaad raaciso sababta ay qiimahan ku yeelatay xaglo talantaale ah xaglaheenu way kala noocyo duwan yihiin waanay noocyo dhowr ah ama magacyo dhowr ah ay qaadanayaan halkan waxaynu ku eeganaa xaglaha talantaaliga ah xagla talantaaliga waa maxay MN haddaad u fiirsato laynka MN iyo laynka QR waa xariiqyo barbara ah labada layn ee aad arkaysaa waa laba ku muujinaya laba xariiqood oo barbara ah laakiin TS waa gudbane laynka ay kugu qorantay TS isagu waa gudbane weey okay haddaba xagasha 3 calaamadda ay waa xagal weey 3 ka horeysa xagasha 3 iyo 5 waa xaglo talantaale ah labada xaglood waa laba xaglood oo talantaale ah 3 iyo 5 halkii ku yaalan 3 iyo 5 u fiirso xagasha 3 ee calaamadda kule iyo xagasha 5 waa xaglo talantaale haddaad u fiirsato labada xaglood laynka gudbanaha ah ay labada cidhif kaga kala yaalaan si kala markaynu u dhignana maadaama oo laynka gudbanaha ah ay labada cidhif kaga kala yaalaan waxay ku kala yaalaan labada xariiqood ee barbaraha ah ay ku kala yaalaan oo ay xagalina xariiqda sare ka soo hooseysa xagalina xariiqda hoose ayay ka sareysaa marka labada xaglood ee had iyo jeer talantaaliga waa in laynka gudbanaha ah labada dhinac kaga kala yaalaan iyagoo labada xariiqood ee barbaraha ah midna xagalina ay had iyo jeer ka sareynayso xagalina ay ka hooseynayso ama labada dhinac ay ka kala xigayaan talantaali markaas ay noqon karayaan imika xagasha 4 iyo 6 waa xaglo talantaale ah xagasha 4 iyo xagasha 6 waa xaglo talantaale ah u fiirso xagasha 4 iyo xagasha 6 halka ay ku kala yaalaan si talantaaliya ay hareeraha uga yaalaan marka waana inay ku yaalaan labada xariiqood ee kala sareeya waana inaanu meel ku wada oolin si kale marka loo dhigo hadii xarafka sed la qoro baa la yiraahdaa xaglaha dhexdiisa labada xaglood ee ka sameysma waa talantaali baa la yiraahdaa talantaali ayaa loo yaqaan alternate anglesna waa la yiraahdaa xaglaha talantaaliga ahi waa ay isla egyihiin xaglaha talantaaliga ahi waa ay isla egyihiin oo ma kala waaweyn xaglaha talantaaliga ahi tusaaleyno halkan ku soo qaadanaynaa tusaaleheenna waxa uu khuseeyaa xaglaha talantaaliga ah okay waxa leeyna si laba sawir ama laba shaxan ayaa halkan leenagu siiyay shaxan waxa lagu siiyay A iyo 40 degree waa xagga bidixda ka midigtana waxaad haysataa 110 degree xagalna waa X xagalna waa Y hadaynu ka hore ku horeyno xagasha A maxay noqonaysaa xagasha A waxay ku leegtahay 40 degree sababta ay 40 degree ku leegaatay waa maxay sababta oo ah waa xagla talantaaliya sababta waa xaglo talantaali ah u fiirso A iyo 40 waa talantaali A iyo 40 waa laba xaglood oo talantaali ah ta kale xagasha X waa 110 degree sababtuna waa maxay waa xagla talantaali ah X waxay talantaali la tahay 110 degree waxay talantaaligeedu ku taalaa xagasha 110 degree ay kugu qoran tahay qiimaha y hadaba muxuu ku noqonayaa bal adigu waxaad isku daydaa inaad sheegto qiimaha y adigoo raacinaya sababta ay qiimaha ku heshay qiimaha y waa 110 degree sababtu waa maxay hadaba sababtuna waxa weeye waa xagla gudboon waa laba xaglood maxay la gudboon tahay wayda iyo waxa gudboon 110ka ayaa gudboon dhinac kale hadan ka eegno waydu waxay xagal food saar la tahay egasta
ay xagal foodsaar la tahay. xaglahan foodsaar marka lagu leeyahay waxa la yiraahdaa xaglaha foodsaar waa vertically opposite angles. muhiim bay kugu tahay haddaad ingiriis ahaan kelmadaha aad iskaga qabsato. xagla gudboon waa corresponding angles, xagla talantaaliya waa alternate angles. xagla gudeed hore ayaynu xoogaa xagla gudeedka uga soo aragnay. marka waxa muhiim ah xagla gudeedkana inaynu isagana su'aal iska weydiino. waa maxay xagla gudeed? xagla gudeed A iyo B waa xagla gudeed oo sidee ku noqdeen? dhinac bay ku wada hal dhinac bay ay isu marsan yihiin. marka si loo eego hal dhinac bay isu marsan yihiin, labada dhinac isu marsan xagla gudeed baa la oranayaa. C iyo D na waa xagla gudeed, iyaguna dhinac bay isku marsan yihiin waa xagla gudeed. wadarta xagla gudeedyadu waa 180 degree. labada xaglood ee xagla gudeedka ah wadartoodu waa 180 degree. marka siyaabo badan ayaad xagla gudeedyada uga faa'iideysan karaysaa. xagla gudeedyadu marar dhowr waxay naga caawin karaan xisaabaadkeena. oo markaan idhaahdo laynkaasi iyo laynkaasi waa laba layn ama waa laba xariiqood oo barbara ah. labada xariiqood oo barbara ah markuu gudbana sidaa u dhex marayo, haddii maanta taa aan ku idhaahdo waa 130 degree oon taana ku weydiiyo, ogow isku darka labadaa xaglood markasta waxay isku yihiin 180 degree. marka adoon xisaab aad qorqortiba sameeyay waxaad garan karaysaa caqliyan haddaad si u fikirto labadii xaglood ee 130 isku ahaa mid kamid ah ayaan ka haysanaa labadii xaglood ee 180 isku ahaa ayaan mid kamid ka haysanaa 130. marka 180kii maxaa ka soo haray ama maxaa baaqi inoo noqon kara? inta soo hadhay waxay noqonaysaa 50 kaasi ayaa xagashaasi ay yeelanaysaa. marka adiga oo aan qorin ayaa dusha ku soo saari kartaa. haddii laakiin aad ka maarsan weydo waad qoraysaa. oo tusaale haddii lagu yiraahdo matalan gudbanahaasi isagoo halka uu ku yeelo lagu yiraahdo xagashaasi waa 40 degree, xagashaasina waa x way naga maqan tahay, bal xagasha raadi baa lagu yiri. haddii aanad awoodin inaad dusha ku soo saarto, anigoo rajaynaya biidmillaah arday walba inuu dusha ka soo saari karo oo aanay hawl dheer ka gelin, labadan oo la isku daray waa 180 waad qoranaysaa. waxaad oranaysaa labadooda oo la isu geeyay xagasha aynu egasta u qaadanay oo loo geeyay xagashan kale oo aynu 40 degree u qaadanay waxay isku noqonayaan 180 degree ay isku noqonayaan. kadib waxaad oranaysaa egas waxay kula mid noqonaysaa 40ka marka la wareejiyo wuxuu ka go'ayaa 180ka, waxay noqonaysaa 180kii oo laga jaray 40. waxaa halkaa kaaga soo bixi doona 140 degree oo macnaheedu uu yahay xagashanna waa xagashan egastina waa 140 degree. haddaad doonayso markaa inaad hubiso labadoodan baad isu geynaysaa 140 u gee waa 180. inta soo hadhayna qaabkii oo kale ayaad uga shaqaynaysaa. qaabkaad kuwa hore uga shaqaynaysay ayaad uga shaqaynaysaa. raadi xagasha bal waxa lagu weydiiyay xagasha ay ku qoran tahay inaad raadiso. xagasha marka aad raadinayso suuragal kuma aha inaad adeegsato xagla foodsaar, suuragalna kuma aha inaad adeegsato xagla gudboon. xagla foodsaaro xagashii foodsaarka ay laahayd waabay maran tahay meeshii foodsaarka. xagasha la gudboonina way maran tahay, talantaaligeedana waxba kuma qorna. haddaad u fiirsato sideed u heli kartaa haddaba xagasha si kale oo aad ku heli kartaa ma jirto, ama wax kale oo kuu banaan ma jirto inaad adeegsato xagla gudeed mooyaane. ogow 50 iyo la isu geeyay 180 bay isku yihiin. marka waxaad oranaysaa waxay loo geeyay 50 waxay kula mid tahay 180. saanu helo 50ka waan wareejinaynaa wadarta xagla gudeedka ayaa sidaas. ogow wadarta xagla gudeedku marka la isku daro macnaha wadartu waa isu geeyntooda 180 bay isu yihiin. marka waxaan leenahay waxay inoo mid tahay 180 laga jaray 50. waxay ku soo baxaysaa 130. marka qaabkaas ay kugu soo baxaysaa waxaynu eegaynaa inta xaglood meesha ku taala siyaabo dhowr ayaa lagu weydiin karaa, waana isku wada dardari kartaa. oo isku dardarta ayaa muhiima. waxaan rabnaa matalan haddii lagu yiraahdo labadaasi waa laba xaglood waa laba layn oo barbara ah, kaasina waa gudbane. okay haddii halkaa lagu dhigo 120 degree oo lagu yiraahdo xagasha hel, nidaamka aad adeegsanaysaa muxuu noqonayaa? nidaamka aad adeegsanaysaa waa maxay? ma xagla gudboon baan adeegsadaa, ma xagla foodsaar baan adeegsadaa,
ma xagla gudeed baan adeegsadaa saddexda qaab ee hadda aynu soo dhignay ka ugu habboon waan idiin sheegtaa ma xagla talantaaliyaan adeegsadaa haddaan idhaahdo xagla gudboon baan adeegsanayaa egasta la gudboone waa taa way maran tahay haddaan idhaahdo xagla foodsaar baan adeegsanayaa foodsaarkeedu waa kaa wuu maran yahay ma isticmaali karo haddaan idhaahdo xagla talantaaliyaan adeegsanahay talantaaligeeda waxaa ku qoran 120 taasaa sax ku ah marka waxaad leedahay egas waxay ii leeg tahay 120 sababtoo ah egas ee 120 waa talantaali weeye waxaad leedahay waa talantaali weeyaan baad ayaad odhanaysaa way mid kale ku weydiinaya halkaasaan kuugu qoray 60 degree halkaasaan egasna kuu dhigay hadda egas qiimaheedu waa imisa sababtana sheeg qiimaha oo kaliya ta muhiim aha laakiin waxa iyaduna muhiima sababta inaad sheegto ta muhiimka waa sababta sidoo kale muhiima waa maxay egas qiimaheedu ma oran karayaa egas qiimaheedu waa 60 haddaaban idhaahdo egas qiimaheedu waa 60 degree sababta haddaba maxay in noqonaysaa haddaan idhaahdo waa talantaali egas talantaaligeedu 60 talantaaligeedu waa halkaa 60 talantaaligeedu waa halkaa ee egas maaha haddaan idhaahdo waa xagla foodsaar egas foodsaarkeedu waa kan wuu maran yahay haddaan idhaahdo waa xagla gudboon egas iyo 60 way gudboon yihiin jawaabtaasaad qaadanaysaa waxaad leedahay waa xaglo gudboon baad leedahay xagla gudboon ayaad odhanaysaa marka waxaan doonayaa mid kastoo lagu weydiiyey sababtana inaynu isla fahamno mid saddexaad kuu qoro halkaasaa lagu dhigay markaasaa lagu yidhi waxaad heshaa egas ma garanaysaa haba yaraatee wax xidhiidha oo ka dhexeeya egastaa iyo 130 degree wax xidhiidha oo ka dhexeeya ma garanaysaa tan noocaas oo kale hadday ku qabsato suuragal maaha inaad tiraahdo waa xagla gudboon waayo egas tala gudboon waa taa ma noqonayo xagla foodsaar waayo egas foodsaarkeedu waa kaa ma noqonayaan talantaali waayo 130 talantaaligiisu waa kaa ma noqonayaan xagla gudeed waayo 130 iyo kan ayaa xagla gudeeda wax alla wixii aynu xagla soo dhiganay mid ay haba yaraatee ay iswaafaqsan yihiin ama ay noqonaysaa kuma jirto haddaba haddii sidaas ku qabsato qaabkeedu raadinaysa ama maxaad samaynaysaa sidaas hadday ku qabsato waxaad raadinaysaa xaglaha kaa maran ee kale ayaad helaysaa waayo mid kamida ay hadhow egas iswaafaqi doonaan mid kamida ay egas iswaafaqi doonaan tusaale haddaan idhaahdo tani waa xagla gudeed 130 iyo halkaa maran waa xagla gudeed halkaa maran waxa doonto u qaado halkaa maran hadaa doonto ee u qaado waa inaad adigu wax u qaadato muhiima halkaa maran markaad ee u qaadato waxaad tiraahdaa 130 iyo ee la isu geeyay 130 loo geeyay ee waxay isku yihiin 180 sababtuna waa maxay labada xaglood waa xagla gudeed baad leedahay waa xaglo gudeed ayaad oranaysaa xagla gudeed tayna ugu dhowdhow waa taas hadda waa taas kadib eeda si ay noo helo 130 kaad wareejinaysaa eeda waxay noo la mid noqonaysaa 130 laga jaray 180 laga jaray 130 maxay eedaadi ku soo baxaysaa waxay ku soo baxaysaa 50 degree way mar hadday eedeeni 50 degree inoo soo baxday miyaanay eeda iyo egastu ahayn xagla gudboon waa xaglaha hal dhinac u wada furan ayaa la yiraahdaa waa xagla gudboon sidaa daraadeed waxaan leenahay egasteena laftirkeeduna waa 50 degree sababtana waad raacinaysaa waxaad oranaysaa waa xaglo gudboon baad leedahay xagla gudboon ayaad oranaysaa marka waxa dhici karta xaglaheenaasi in lagu weydiiyo mid aan xeerkii aad hore u taqaanay waafaqsanayn sida imika matalan egas lagu weydiiyay inta taa lagu siiyay meel kaga ma jirto haddana way soo galaysaa un xeerkii meel kaga ma maqnaanayso waayo de xagashan lagu siiyay qiyaasteeda haysato mid bay gudboon yihiin ama mid bay foodsaar yihiin ama mid bay talantaal yihiin imika haddaan dhinac kale ka eego 130 iyo xagashani waa talantaali tana waa 130 numberka iyo xagasha maray waa xagla foodsaar kana waa 130 marka 130 hadaad haysato taasina waa imisa waa 130 laakiin waxa aad kaan doonta inaad ku soo dhacdo xagashaad u socotay oo ah egas oo aan inta midna waafaqinin marka sida daraadeed mid egas ay isleeyihiin ayaa la doonayaa
egas hadda waxay isla haadeen taasay siiyeen oo ay u noqdeen xagla gudboon taay xagla gudboon yihiin baad markaa ayaad la qaadanaysaa taasana markaa jawaabta ku soo saaraysa waxaana lagu weydiin karaa xaglaha baaqiga inaad soo saarto su'aale bal hadda markan saddex layn ayaa barbara ah maaha laba layn oo keliya saddex layn baa barbara ah hal laynna waa gudbane sida aad arkayso xaglaa lagu weydiiyey xaglaha inaga maran sida matalan x iyo y iyo a sidaynoo helina mar kasta oo uu ardaygu xeerkii xasuusan yahay hadday saddex layn noqdaan iyo hadday afar noqdaan iyo hadday 20 noqdaanba wax isbedel ah haba yaraatee kuma dhacayo nidaamkii iyo xeerarkii aad dhigatay unbaa la waafaqaya u fiirso mar hadday barbar yihiin saddexda layn mar hadday barbar yihiin waxa la oranayaa xagashaasi iyo xagasha egas ay ku qoran tahay saddexda xagloodba dhan bay u wada furan yihiin hal dhinac ayay u wada furan yihiin u fiirso hal dhan bay u wada furan yihiin sidaa daraadeed saddexda xagloodba waxa la oranayaa waa xaglo gudboon baa la oranayaa xaglo gudboon corresponding angles marka xaglaha gudboon qiyaastoodu waa isku wada mid marka waxaad leedahay x waxay leegtahay y waxay leegtahay 140 saddexdooduba waa xaglo gudboon waa xaglo gudboon baad oranaysaa xaglo gudboon ayaad oranaysaa waa xaglo gudboon sida daraadeed qiimihii y ee aad raadinaysayna waa 140 qiimihii x ee aad raadinaysayna waa 140 labadoodii qiimoodba way is wada leegaaday sidaas simbalka baad qiimihii ku heshay hadii eeda lagu dari lahaa b oo lagu dari lahaa c eedan hadaba seenu heli karaya eedaasi seenu heli karaya waxa muhiim ah inaan ogaano qaabka aynu u helino xarafka ama ka inaga maqan qaabka aynu heli karno inaan ogaano inagu hal xeer baynu dhiganay marka ma doonayo inaynu xeerkeena dibadda uga baxno ma rabno eedaasi waxay talantaaliyihiin xagasha biidaasi waxay talantaaliyihiin xagasha marka muhiimaddu waxa weeye inaynu xagasha ay talantaaliga yihiin helno ayayna caawin karaysaa biida talantaaliga hadda hesho biidi waad heshay marka imika matalan y waxay ku soo baxday 140 hadday halkaasi 140 ku tahay xagasha iyo y waxay isku yihiin xagla gudeed bay isku yihiin marka labadoodii baa sila adeegsanaysayo waxaad oranaysaa y loo geeyay xagasha ka maqan waad u magac bixinaysaa waxa doonto u bixi laakiin u magac bixi hadaa doonto elbow bixi waxay isku noqonayaan 180 waana laba xagla gudeed weeye waana laba xaglo gudeed bay noqonayaan laba xagla gudeed bay ku noqonayaan labada xagla gudood waxaan niri y waxay ku soo baxday 140 Soomaa 140 keedii dhigo balaas l oo xagasha aad samaysatay si aad u hesho daraadeed waxay kula mid yihiin 180 degree l marka waxay ku noqonaysaa 180 laga jaray 140 oo ah 40 degree macnaheedu marka haddaad l heshay eena waad haysaa waayo el marka horeba xagal la nisiye ma ahayn tulayna weydiiyana ma ahayn labada midna ma ahayn el waxay ahayd xagal aynu u soo marnay si aynu u helo eeda aynu u soo marnay eedaynu ugu soo araaranay marka waxaynu oranaynaa eedeeniina waa 40 degree sababtoo ah waa xaglo gudboon waa xaglo gudboon weey xaglo gudboon macnaha waxay la gudboon tahay el iyo eeba ayaa xaglo gudboona way labadoodaas ayaa xaglo gudboon noqonaya ka warrama b iyo c ka warrama dhinac haday wada furan yihiin oo wada xaglo gudboon b waxay leegtahay e c waxay leegtahay e dhamaantood is wada leegeen marka si nidaamsan baad u dhigaysaayoo waxaad oranaysaa e waxay leegtahay b waxay leegtahay c dhamaantoodba waa 40 degree dhamaantoodna waa wada xaglo gudboon weey dhamaantoodna waa wada xaglo gudboon bay noqonayaan gudboon ay ku noqonayaan marka cashirkeenaasi saddexaad maanta halkaas ayuu inoogu joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno wean mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno